وارد أن آخرها نقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo madaxweyne Axmed Ducaali Geele xaaf iyo marwadiisa sharafta badan xakiimo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi iyo madaxa xukuumadda Shaakir gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa maxaan iraahdaa dawladda golaha wasiirada oo ila socda baarlamaanka labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka dhalinyarada halkan caawa timid oo nala joogta gabdhaha salaadiinta culummada baanbeeda kooxda hawlada waa beri galmudug saraakiisha ciidamada halkan nala jooga bahda saxaafadda kulligii waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa mahad leh allihii na khalqayna abuuray oo caawa suurtageliyay inaan halkan isugu imaano iyo dadweynaha reer dhuusamareeb galmudug oo sida sharafta badan oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo soomaalinimada ku jirtay lagu soo dhaweeyay waan martida u ahayn labadii cisho aan joognay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha galmudug iyo dawladdiisa sida wanaagsan ay noo qaabishay oo iyadana waaltinimada leh runtii farxad ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno midowga ahlu sunna wa jamiica iyo galmudug waana maalin taariikhi ah kulligeen taariikhi noo ah oo muujinaysa dadka Soomaaliyeed ma maqlaysaa قال لي هذا هو شغال يعني وشغال horta waxaan leeyahay dadka reer galmudug waa lasii badan yihiin waa dhab dhibaatooyin badan waa lasoo maray duruufo badan adag waa lasoo maray laakiin maanta waxaan leeyahay waa nasii badan tihiin si sahlan kuu sheegaysaa waa nasii badan tihiin waxaa ku nasii badan tihiin madaxweynihiina waa madaxweyne adduun waa tan maqlaysa inuu ka hadlaya ganacsi iyo adduunye iyo bad la aado iyo beero la qoto iyo kheyraad la raadiye iyo lacag sidii loo samayn lahaa iyo suu isugu dhufanaya xoolaha qiimahooda iyo sheekh shaakir oo soo raacay oo duceynaya oo u duceynaya kulligii inaad janno gashaan waxaan isku heli kara maaha marka runtii waa lasii badan tihiin hadda wixii ka dambeeya wax soo saarkan u kaca ducaystana hala ducaysto waxaan rabaa inaan runtii wax ka idhaahdo khibradda aan ka helay magaaladan iyo guud ahaan dadka degan galmudug runtii waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo qulub fiican oo weliba magaaladan ku arkay kala dambeyn badan yaan iyo xurmo waxaan arkay ciidan nidaamsan oo runtii as leedahay kulli ma kaxaysaa oo meesha qolooyinka dhibka badan oo sharta wada ay u badan yihiin ma geysaa siday organized u yihiin ay u habaysan yihiin iyo siday uga shaqeeyeen runtii wax caadi ah maaha weliba waxyaabahan arka waxaa ka mid ah
أهل السنة وجماعة قول لي راهدوا وعلماء وذاتوا سيدي فكوا جعليهين والموسيقى نوع قراعين تصبح المتنسى إلى البحيه وعاونا لذلك إلى نعوينه ونبقى إيش اللي حيكون عليه بعشان وريق السنة marka ku faraxsanahay shaakir iyo wadaadada inay la caawinayaan oo aan wada tumanayno weli laakiin qofka ciyaarna ma gaarin waxyaabaha aan arkay oo runtii soo jiito waxaa ka mid ah bambayda بامبي سان خبراء اسمارك waxay soo xashiyeen xamar marka dhowr jeer weydi waxaan ku yiri ilaa meeqa sana aruuriseen bambaydan maanta waa maalin taariikhi ah oo aan kulligan markhaati ka nahay midowga dadka waalaha ah ee reer galmudug waxay ku midoobeen oo midaysteen ciidankooda waxay mideeyeen calankooda waxay mideeyeen baarlamaankooda calaamadaha wanaagga midnimada ay ku jirto taasna ka mid ah bambaydan arkayno iyo meeshaan qurxoon aan iskugu nimid iyo maxaan ku dhahay hoblada waa beri halkaan noogu tumaayey iyo sidaan iskugu nimid iyo beesha caalamka oo maanta noo timid waa inta ugu yar oo midnimadu ay leedahay faa'iidadeeda ay leedahay marka bal ka warrama Soomaali oo midowday ka warrama marka bal qiyaasa annagu dawladda federaalku runtii waxay xoogga saari doontaa insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo dhaqangelinta iyo hirgelinta heshiiskan wax walba waa ku bixinaynaa waqti walbana waa siinaynaa si uu u sii adkaado midnimada galmudug maxaa yeelay quruxdan waxaan sii deyn karna ma aha waa inaan kulli ka wada shaqeyno waxaa ammaan mudan dadka waalaheena ay reer Cadaado oo muddo dheer runtii hay quruxdan oo fariisin u ahayd dawladda galmudug oo wanaag badan iyo soo dhaweyn badan runtii siiyay dawladda oo qayb ka ahaa dib u heshiisiinta halkan maanta isugu yimid diyaarna u ah inay xoojiyaan gacanna siiyaan adkeeyaan midnimada reer galmudug inay adkeeyaan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan rabnaa inaan u mahadcelino ahlu sunna wa jamiica juhdiga geliyeen inay magaaladan iyo gobolkan intiisa kale ay ka xoreeyaan dhowr meelood maahee qolooyinka sharwadeenka ah oo dhibka wada oo al-shabaab ay naftooda u hureen dhiigooda u daadiyeen inay noqoto darbi ay noqoto ay ka gudbi waayeen al-shabaab ay ugu gudbi waayeen meelaha kale ee runtii waqooyiga Soomaaliya ee Puntland iyo waqooyiga galmudug aad iyo aad ayaan ugu amaanaynaa insha Allah abaalkeedana Allah teelisan annagana wixii karaan keenana waa sameeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo
waxayna intaas ku gaarin isku tashi waa dhab dowladdu wax ma siinin iyagaa isku tashaday macnaheedu waxay ku tusinaysaa ummaddu hadday isku tashadaan inay isdifaaci karaan inay dhisan karaan noloshooda inay horumarkooda ka shaqeyn karaan laakiin waa markay ku midoobaan hoggaan wanaagsan markay ku midoobaan aad iyo aad yaan runtii ugu ammaanayaa waktiga iyo waxa ay geliyeen inay isku sii hayaan oo galmudug dowladda galmudug ee halkan u timaado wax u diyaarsan oo nidaamsan ee u timaado aad iyo aad yaan runtii aan uga mahad celinaynaa waxaa jira baahiyo ay qabaan oo annagu aan runtii ku caawin karno ama aan gacan ka siin karno ballanqaadyana waa samaynaynaa insha allah caawa waxaa jirta agoontii dadkii mujaahidiinta ahaa oo runtii difaacay qolooyinkan khawaarijta ka difaacay carruurtoodii inay u baahan yihiin in loo sameeyo kulajooyin meelo ay lagu xareeyo oo wax lagu baro insha allah gacan waa ka geysanayna waxaan dhagax dhigaynaa oo aan ka hirgelinaynaa magaaladan iyo meelo badan ee gobolkan dugsiyo farsamo oo dhalinyaradu ay wax ku bartaan farsamada gacanta ku bartaan si ay isugu filnaadaan aysan uga raadsan nooc kasta oo farsamo ah meel kale aysan uga raadsan oo iyagu ay gacmahooda ku qabsadaan wax alla waxay rabaan hadday noqoto furniture la sameeyo hadday noqoto maxaan ku yidhaahdaa sida xaaf uu sheegay in noqoto macdinta hadday noqoto koronto hadday noqoto baabuurta iyo biraha sida loo samaysto insha allah waxaan ka bilaabaynaa oo aan ka dhisaynaa dugsiyadii farsamada gacanta insha allah macallimiinna waa idin keenaynaa si aad kugu filnaatan hadduu eeba yidhaahdo dhibkaan aragna intaan soo soconay waxaa ka mid ahaa in jidadku kulli ay baaba'san yihiin oo 27 sano ee lasoo dhaafay aanan cidna u tegin aanan la ribayr garaynin oo aan la dayactirin oo ay burbureen meesha nus saac ay ahayd in lagu tago laga yaabo in lagu tago 2 saac iyo 3 saac iyo wax ka badan insha allah qayb baan ka qaadanaynaa idinkoo wadan doona isku tashiga aad bilowdeen annagana aan gacan ka geysan doono sidii aan jidadkaas u dhisi lahayn aan dib ugu dhisi lahayn si dadku iyo ganacsigu uu si sahla uu soo goosho hadduu eeba yidhaahdo waxaa la ii sheegay in cisbitaallada halkan jira ay aad iyo aad ay u dayacan yihiin ayna u baahan yihiin inay gacan ka helaan dowladda federaalka insha allah hadduu ilaha yidhahdana gacan waa idinka siinaynaa si dadkeenna aan u daaweysano khaasatan carruurta iyo dumarka hadduu eeba yidhaahdo waxaa kaloo la weydiistay haddaan xasuustaan markii xaafil la dhaarinayay oo aan ka soo qayb galnay kow wuxuu yidhi ma xasuustaan hana loo dhiso xabsi gobolkan xabsi ma laha macnaheedu waxyaabaha keeni kara in criminalska dadka dambiilayaasha ay dadka ku dhex jiraan ama dib loogu noqdo hawlihii dhaqanka iyo qabiilka oo intuu maanta qofku wax dilo oo dadkiisa ku dhex jiro ama inta uu wax dhibaateeyo la yiraahdo faataxa qaado waxa keenaya xabsi la'aan iyo nidaamkii maxkamadaha oo aan jirin waa dhisaynaa birina waa dhagax dhigaynaa insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo hal maaha dhowr xabsaan samaynaa insha allah bambaydan qaar ka mid ah inay gobolada kale u diraan ama goboleedyada kale ama halkan idinkugu yimaado scholarship aad bixisaan waxyaabaha kaloo muhiimka ah waxay tahay oo aad naloo weydiiyey gobolkan ma laha dekado
waxyaabaha aan doonayna dalka inuu ku horumarana waxay tahay gobol walba inuu yeesho dekado waxaan leenahay xeeb aad iyo aad u dheer waxaan lahaan karnaa dekado badan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo maalmaha soo socda waxaan dhagax dhigi doonaa dekada hobyo hadduu eeba yidhaahdo gobol walbana waan ka sameynaynaa dekado bacdamaa aan leenahay xeebta ugu dheer ayna soo maraan maraakiibta traafiga ugu badan adduunka macnaheed markaan leeyahay gobollada waxaan ka wadaa sideed tobankii gobol wixii badda ku aadan maamul goboleed keliya ma aha marka meel kasta oo suuragal ah inaan ka sameyno deked maraakiibta marta dalkeenna waa maraakiibta ugu traafika jidkeenna waa jidka ugu traafika badan adduunka marka inay noo noqoto kaabayaasha dhaqaalaha qaybaha ugu waaweyn inay noo noqoto waa inaan ka shaqeyno waxaan ballan qaadaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo oo kale in dowladda federaalka ah ay gacan siiso ay taageerto dowlad goboleedkan galmudug bacdamaa sida la sheegay ay dhab tahay ay curdun yihiin waxyaabo badan ay u baahan yihiin inaan waxyaabo badan ugu roonaano insha allah intay kasoo kabanayaan hadduu eeba yidhaahdo sidaas oo kale dowlad goboleedyada kale naftigooda inaan sidaas oo kale u ogaano asmaqalno sidaas oo kale dowlad goboleedyada kale naftigooda aan wax alla wixii karaankeenna aan ugu roonaano oo aan gacan u siino oo aan aad iyo aad maaragtay ula shaqeyno dhan walbaba hadduu eeba yidhaahdo dib u heshisiinta hadda aan arkeyno waxa weeye waa bilow waxaa loo baahan yahay inaan gaarsiino meel walbaba inaan gaarsiino dib u heshisiinta heer beelo inaan gaarsiino beelaha soomaaliyeed oo waxyaabaha macnaha lahayn ku dagaalsan inaan dhex galno oo aan nabad ka sameyno dhexdooda aan nabad ka fulin dhexdooda aan isku soo dhaweyno oo aan tusno inay yihiin dad waala ah oo aan kala maarmin ay heshiiyaan ay ku khasban yihiin inay wada noolaadaan haddaysan nolol haysan oo haddaysan nabad lahayn waxaa xaqiiqa ah inaysan nolol helaynin marka dadkana dhegaysanaya beelaha soomaaliyeed oo ishaya waa idiin soo soconnaayo ogaada waa idiin imaanaynaa ogaada waxaan geenaynaa tuulooyinka dadka degan ama nawaaxigooda inaan gaarsiino iyada naftigooda inaan gaarsiino inay wax wada qabsadaan ay isku tashadaan ay walaaloobaan hadduu ilaah yidhaahdo iyo degmooyinkaba macnaheedu waxay tahay cid walba inaan la hadalno cid walba in la qanciyo haddaan taas gaarno oo aan isqancino oo aan isu tanaasulno waxaan aaminsanahay dalkan inuu midoobayo haddii uu midoobana uu nabad helana soomaaliya inay barwaaqa noqonayso meel barwaaqa inay noqonayso waxay noo horseedaysaa taas marka bacdamaa aan dhibaatooyin badan soo marnay oo dadkeennii ay dhibaatoodeen oo nabaddii runtii nabad la-aan badan ay dhacday oo dadka soomaaliyeed aad arkaysaan sharaf darrada iyo karaamo xumada meesha aan ka taagannahay adduunka ma aaminaysaan inaan nahay dalka adduunka ugu xun ma aaminaysaan annagoo ah dadka ugu fiican bal isqabadsii labadaas in la yidhaahdo dalkan waa dalka ugu xun adduunka waa dalka ugu fakrisan adduunka annagoo nimcada ilaahayna siiyey macnaheedu waxay tahay waa isqaadan la'nahay waa isu samri la'nahay waa iscafin la'nahay waa isu tanaasuli la'nahay taas weeye waxa annagu aan ka shaqeynayno dowladdaana horumar u noqonayso dowlad goboleedyada ay nagala shaqeynayaan qof walba oo soomaaliyeedna aan ka rabno inay gacan nagu siiyaan oo nagu garab istaagaan taas markaan helno waxaa noo bilaawday dhaqan dimuqraadiyeed ah bacdama aan soo marnay qabiil inaan waxba lagu kala qaadi karin diin si xun loo qalloociyeen inaan waxba lagu qaadi karin
inay maanta taagan tahay walaalow inay taagan tahay walaalow macnaheedu waxay tahay haddaad doonayso inaad xafiis qabato haddaad doonayso inaad madax noqoto dadka inaad barido oo aad kasbato waa dimuqraadiyad inaan ka shaqeyno dimuqraadiyaddii marka oo aan u gudubno meesha aan ka taagannahay qabiil iyo 4.5 iyo reerkayga maxay heleen inaan u gudubno xisbigayga muxuu helay mabaadi'deeda ka fiican mabaadi'daas leadershipkayga ka fiican leadershipkaas ee aan qofka loogu codeynin heeb aan loogu codeynin qabiil aan loogu codeynin degaan aan loogu codeynin ee loogu codeeyo qofkaani muxuu ka bedeli karaa xaaladda jirta muxuu dalkan horumar gaarsiin karaa sidee dadkan u walaaleyn karaa mabaadi'da noocaas oo kale ah waxa weeye dhalinyaro waxa waqti ka lumay shalayna uu ka lumay waa idinka waxa hadda waqti uu ka lumayna waa idinka waxa la isticmaalayna waa idinka diida qabiil ha yeelina qabiil haddaa yeeshaan 27 sano oo hadda naga khasaartay 27 sano kala soconayna markaasna waxay jirtaan 60 sano waqtiina waa dhamaaday waqtiga la ka dhameeyay qabiil ma shaqeynin dil la qalloociyana ma shaqeynin waxa shaqeynaya waxay tahay Soomaalinimo wadaniyad qadiyad wanaagsan shaqo wanaagsan yaa shaqeynaya aqoon Soomaalinimo yaa shaqeynaya macnaheedu waxay tahay ballan aan qaadno inaan dalkan gaarsiino qof iyo codkiisa markaan qof iyo codkiisa salaad cali jalaa sacabku bilaabay intuusan tagin hadhagax dhigo xisbigiisa walaalayaalow waxaa noo balana dalkeennu waa dal fiican dadkeennu waa dad fiican inaan ka shaqeyno midnimada inaan ka shaqeyno Soomaalinimada inaan ka shaqeyno dimuqraadiyadda inaan ka shaqeyno Soomaaliya inay ka horumarto wadamada hadda anagu qaarkood aan xorriyadda ka hor qaadanay oo hadda naga horumarsan inaan ka daba tagno oo aan ka horumarno kartideeda waa leenahay caqligeeda waa leenahay dadnimadeeda waa leenahay diinteeda waa leenahay waxaana laga rabaa oo kaliya caqliga inuu shaqeeyo kaliya عقلي إنه شقيه وأنا عرقنا عقلي إنه شقيه لنا دنيا هي لنا آخر وحسب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.